حبيباتي ماسكين قميصتا وكنا انتو waxaa ku heystaa karooto basal iyo tuun karootada waxaan idhaa hal xab weyn xataa way ugu filan tahay basasha hal xabaan ugu filan toontana laba xab yar yar ama hal xab weyn ah inta waxaa ku heystaa qasil iyo cilaan iyo biyo marka horta waa raacina inta aan rabo inaa fiiqo ama aashiido marka waxaan ii xasuusinaa mar walba dadka cusub oo nagu soo biira waxa xasuusinaa gabdhaha in maxay ahayd maaskan uu isticmaali karo qafka timaha raba inay u bataan una dheeraadaan balse hadii aad timo badan tahay meesha qasilka iyo cilaanka waxa ku bedelanaysaa baamiyo fiidiyogaasna anaan nii soo diraa ilaa yiraahdo laakiin maaskan hadda wuxuu quseeyaa dadka raba timooda inay u bataan una dheeraadaan qasilka iyo cilaanka timuhu badiyaa caafimaadka timahana qayb weyn oo ka qaata ama door wuxuu ka qaataa in timihii ay baxaan marka hadda waxa isku shiida karootadii iyo basashii iyo tuuntii intaas isku shiidana kadib waa miira marka isku shiido halkan waxaan rabaa inaan igu xasuusiyo baamiyaha markii la joogo ma miireenin oo waa isku wada shiidaa maxaa yeelay baamiyaha hadii aan dhaho waa miira bibiye naqanaysa timiina dhooti dad badan ee ku dhacday in timii ay ku dhareeraan oo kale ee dhahaan biyihiya noogu batay marka saas darteeda u dhaha baamiyaha karootada basash waxa dhan hal isku shiido kadib uu ku adkaana sida cilaanka camal laakiin marka qasilka cilaanka la joogo waa miira dheecaanka aa ka miiray waxa ku qasanaa qasilka cilaanka ina faanteena fila lacala hadii biyi adi aa miirto oo dheecaanka ahaa oo karootada iyo basasha iyo tuunta qasilka cilaanka ay ku yaraadaan biyi kala ku darsan kartaa ina qandacsatid ama biyi caadi xataa dhibaato ma lahan hadii biyi aa miirto ay kugu yaraadaan biyi caadi ah hadana ku sii qasaysaa qasilka cilaanka iyo okay markaas intaas markaa joogtiin waxaan ii xasuusinaa mar walba sheyga markaa samaysanaysiin maaska timaha in saliid aa ku darsatiin saliida markaas aa isticmaalaysiin markaa timaha marisiin kadib hal saac aa sugaysiin waa ku kuusaysiin timaha marinaysiin hal saac ka badan yuusan nii marsanaan maxaa yeelay basasha iyo tuunta waxay keentaa in maqaarka uu xanaaqo isla markaana dabeecadihii ay isbedelaan ama dhaawac ay idin geystaan qaarkiin madaxa xasaasiyad inay ka qabaan laga yaabaa markaas ku daahinina haddana waxaa soo qabtay qasilkii iyo cilaankii waxaa rabaa marka dheecaanka basasha iyo karootada aa ka miiray inaan ku qaso qasil iyo cilaan mar walba marka qiyaasta madaxiina markaas aa qiyaasaysiin tusaale 3 qaando ka qaadan kartiin ama 3 qaando cilaan ah iyo 2 qaando qasil ah aa qaadan kartiin intana cilaanka ku jiro xaggan qasilka marka inta isdheeysiin timiin way daaqayaan mar walba qasaysiin okay marka qastiin kadib oo si fiican uu isku dhex galo waxa soo qaadanaysiin saliid kadibna saliid amarsanaysiin mar walba waan xasuusinaa shay hada sameynaysiin oo timaha ah ina saliid ku darsatiin maaskeena timaha waa kana marka qafkii wax faham waayo hay soo waco insha Allah maxaa yeel fariimaha xogaa aad ay u badan yihiin ina arki waayo laga yaabo maciyo soo jawaab